بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتها بوندا وضيال مeel kasto aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah ama wareysi gaar ah oo aan ula yeelan doono qaar kamid ah jalayaashii ugu caansanaa ama ugu saameynta badnaa filimka ilmada qarsoon oo kamid ah filimaanta ugu saameynta badan geyiga Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyay laga daawanayay baraha bulshada kala duwan waa Samatar oo filimka ku metelayay Xaaji Xuseen iyo sidoo kale Hibaaq Shaadacse oo iyaduna ku metelaysay Saacada filimku intii uu socday waxaad arkayseen wajiyadan oo wajiyo ka duwan lahaa marka filimka gudihiisa la eegayo balse caawa iyagii baa toos inoo hor fadhiya oo aan filim jireeyeen su'aalo kala duwan ayaynu weydiin doonaa oo la xiriira filimkaasi falcelintii ka dhalatay iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira jiliinkooda marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynaya Samatar Xaaji Xuseen soo dhaw Samatar wandhawahay Cabdiruus Beershe saxbaad baan dhawahay way Hibaaq Shaadacse ugu horeyn bal soo dhawow Saacada ayaad filimka ku metelaysay bal ugu horeyn anaga iyo daawadayaasha waxaad nooga sheekaysaa doorka weyn ee filimka aad ku lahayd ama qaabkii lagugu soo xushay ee lagugu xulay inaad metesho Saacada oo ahayd qofka inta badan khiyaamada iyo isku dirka iyo waxyaabaha ka shaqeynaya filimka ilmadii qarsoonay Cabdiruus horta wala wandhawahay aadna u mahadsantahay wajiga saxda in dadka hor keento inta markaan ka imaado kulay aan filmo horan meteli jiray isla boostkan rufiyaanimada ayaan ku meteli jiray sida laajiyeed buu maaragtay directorka maad ila soo xiriiray sidii baan filimka ka qayb qaatay waxaad leedahay wax cusub iguma ahayn inaan metelo wax cusub ma ahayn horan soo meteli hore wada meteli Samatar Xaaji Xuseen soo dhawow oday weyn baad ku metelaysay oo caruurtiisu Hibaaq ay kamid ahayd oo waxa weeye marka la eego Hibaaqna damala daahan wax yar bad kala weyntihiin laakiin Xaaji Xuseen oo Samatar bal soo dhawow marka ugu horeysa bal adiguna doorkeed ka ciyaaraysay filimka ilmadii qarsoonay wallahi Cabdiruus horta anu horta position kan hore wali uma metelin laakiin aabanimo oo meteli jiray waligeeba wixii aabal ku saabsan la dhiibo waan meteli jiray laakiin booskani waxa filim ka duwan filimaanta kale yani directorku sidoo noogu dhiibay marka laga yimaado waxaan jilayay dabeecadana lahayn mid kale waxaan nin qoyskiisii uu dagaal kula jiro oo waxa weeyaan cid kale aan weerarayn baan ahaa marka la eego dabeecadayda shakhsiyan iyo dabeecadda filimka ku metelay waxa aad u kala adag bay ahaayeen aniga laftirkayga marar marka habeenkii sii seexanayay soo dhanayay doorka maxaad ku fashaad ku qaadatay adayga markaan ka yaabo marka wallahi filim cajiib oo ahaa Xaaji Xuseen u baaray وانا نهانا ان شاء الله Samatar hadaynu dul istaagno noloshaada gaarka ah qaabkee buu u saameeyay filimku hadaynu baliyada laftigeeda dul istaagno maadaama aad jireysay wax ka weyn oo ah aabanimo ah in caruur waaweyn oo Hibaaq iyo adna oo agtarada filimka ay kamid ahaayeen wallahi Cabdiruus filimka bilowgii ilaa dhamaadkii horta saameyn weyn bay ugu yeeshay falcelin kala duwan way iga timi dadyo kala duwan baa ila soo xiriirayay horta mar waxa igu adkayd markaan filimka gudihiisa ku jiro mar kasta oo directorku igu raado sidaas sameeyo waxaad metelaysaa meel aan ka keenay anigoon garanay mararka qaar baa sidii directorku ii sheegay si kasii fiican aan sameynay intii gudaha filimkan ku jiray marar badan sectionada qaar markaan metelayo habeenada qaar siinanka qaar anigaaba waan sii weysaysan jiro aniga ka subxaanaysan jiray wixii aan anu ka cabsi qabay markii dabada u baxeen oo garanaysaa de saameynta yeelanaysa falcelinta ugu badan ee bulshada dhexdiisa iga timi waxay ahayd inay dadku yiraahdaan inay yarbatay sida habla waaweyn u dhalin karaysa qisadu baa ku socotay markaa laba nin oo walaala oo kala yar markaa ka yari oo hantida lunsanay marka dambe saan loo ogaano inuu khiyaamada iyo sharafta inta sharaf xumada inta lagu hanti ku sameyn karayo wallahi falcelin badan baa walaaliga timi suuqa markaa maray la yiraahdo aabiye xumaa وكان هذا حاسد وكي عروت السلعية وحياة بدن dad badan oo waxa jira dhibaatadan ay ku dhacday oo aniga shakhsi ahaan la soo xiriiray oo markay filimka daawada iyagu ooyay soo galayay intay lambarkayga soo raadiyaan ba social media aaladaha kala duwan aan isticmaalay intay kala soo hadlaan iga sheekeynay tabta aan u dhaqmayo in qaarkood loola dhaqmayo ilaa hadda xaaladaha ay kula nool yihiin marka waxaad leedahay filimka kaliya kuma eka wax ka jira bulshada Soomaalida dhexdeeda oo dad ay ku dhacday baa aniga la soo xiriiriyay ilaa xad والله ترى بس 3 إلى 4 قف با إلى سو حريري وحالدنا oo kala haysato
marka filimka markaad eegto bilow ilaa dhammaad xalqadaha wacyigelin bay ku socotaa intii hore kibraani baan ahaa laakiin intii dambe waayaha iidan sheegay noloshaanay ku tusaysaa shalay adigoo ladnaa inaad berito la marnaan karayso marka fariintan xaggan uga diraya waxa weeyaan waxaan waa wax bulshada dhexdiisa xaqiiqatan ka jira dad badanoo waxaa jiraan codkooga cid kor u qaada aanay jirin kuwaan waxaan lahaa dadku hoos ha loo eego way hibaaq igu dhib hibaaq shaar dhacse oo ku matalaysay filimka Sacda bal adigu saameyntii uu noloshaada ku yeeshay intii filimkan ilmada qarsoonayd oo dunida Soomaalida meel kasta ay joogaan wada gaaray bal maxaad nooga sheegi kartaa adiga saameynta uu shakhsiyan kugu yeeshay wallahi Cabdiruus horta filimku markuu bilaabmay saameyn lama oran karin saameyn way dhaaftay dadku waxay bilaabeen filimka inay dabdab u qaataan markay arkaan inadaan ala xaasido walaashid bay xaasid hadayba qof kale xaasid leed waaba garbe walaashid bay ka xuntay aabahay wax isku dirtaa walaash wax noocaas oo kala marka dambe waxaad moodaa inaan is saameysay oo la iraado ba hibaaq say filimku mataliso waaba ka dhaba oo waxa jirtay waagi hore filimkan oo arfaanimada matali jirayba dadkaan ay qoon wax oran jireen hibaaq baran sida ay filimku mataliso dab ayaaba ka tabi oran jireen moogti marka wallahi inkastoo oo aan dad badan arkay oo leh qaybta rufiyaanimada waxaan ka faa'iidnay 10 oo macnaha walaalaha qudhooda isxaasidi kara kuwa wada dhashay kuwa wada dhalan dadku maaragtay saxdi ma wada aha marka aniga horta saameyn badan ba iga timiyo aniga shakhsigayga in la caayo laakiin anigu waxba uma arkino markaad jalaatayo oo aad wax matalayso dadkan waa moogta indha ku garaad leh waxaad adigu tusto un bay ka aamineen marka rufiyaanimadana waxaan anigu tusay buu ahaa waxa iga aamineen uu ahaa way marka waxa leedahay Sacda inuu filimka ilmada qarsoonayd kaga nimaadno kaga nimaadno hibaaq saxda oo nimaadno way hibaaq tan wareejin waxa doonayeen ku weydiiyo Samatar dhinacaaga fadhiya oo filimka gudihiisa marka la joogo aabaha mataliyay bal isaga matalaadiisa waxyaabihii aad ka xasuusatay intii filimka ku dhex jirteen midiyaan laba maxaad nooga sheegi kartaa xagga Samatar markaan anigu filimka la matalayo waan si jeclaysan jiray oo waayo sakana nagu qaadan jirtay hore u dhamayno marka wallahi anigu markaan qiimeeyo waxaan siin lahaa number 1 حاجة جنين أبو ونكسنا وهذا النساء أبدا أنا هرت حقيقي وكون نكسنا إن قصد أنا صحيح قلت بقى وتي لكن أنا أبون أنا حكى والدني مو أم بندودي أما ها حماده ما هو نكسنا هذا وقت مركانه وسكوت أباي وين سمطر عندي رسول يرى يرى كويرة درا أنت علي واحد رواس كوته hibaaq dan bay ugu wadatay way xoogaa waxa la ku wada soconay dulmi baa la ku wada soconay laakiin markii dambe anagu dulmigii ka hadhay iyadoo isii waday waxa la yaab diyaaradii ka soo hadlay marka meelo khilaaf weyn ka dhaxgal xidhiidhino ilaa idinku maadaama dad kala ashir qoon loo mareegayseen idinka laftigiinu ma idaan isku mashquulin marka wallahi inta badan horta filimka kula saaytay inta aabanimada ay mar baa jirtay filimka horta sirteedii dhinaceedu ka baxay filimka waxyaabaha cajiibka ku jira Cabdiruus waxa kamid ahaa uu ka hadlayay in mararka qaar jacaylku ka awood weeyay wax walba oo dhinac markaad eegto yaani qof kasta oo sirta sida ugu dhaga oo aamintaad u dhiibtaa inuu jacaylku ka furfuri karay wiil bay jeclaanaysaa alaabtii aan isku ogeeyraano aanu saddex sano ku sii naaloolo ay iga daba baxsa ayar baa jacayl ha lagu sheegaysaa iyo culayskii bay qaadi kar weysaa marna way jirtaayo saddex ba waxa la yiri hafalina koo gurigaaga geed odayba waxa la yiri inankiisa kula dardaarmay gurigaaga hortiisa geed ha ku beeran goba wuxuu askarina hala saaxiibin gabadhaadana sir weyn ha u sheegin saddexdii ba waa la arkay moogta ninkii baa bari dama tijaabiyay geedka gobka wadiga arkay caruurta yar baa dhagaxan ku turto dhagaxa uu qabsada xagaasuu kaga dhaco ninka qodobo badan baa la tolo markaasuu xasuustay taladii aabihiisii maalin baa waxa la yidhi neef uu soo qowraco markaasuu dhiiggiisa soo maraysu gabadhiisii ku yidhi naaheedhe cidna ha ii sheegin nin baan soo dilay laba cisho markay qarinaysay maalinta saddexaad adkaysan kar weyda kii ay saaxiibka ahayeena askariga ahaabaa gurigii laba cisho kusoo noqday si maalintii dambe ku tiray war nin baa kuu sheegayaa ninkii nin buu soo dilo halkana ku xidhaysay dee ninkiina ma hubsanina uu xidhay ninkii markaa saddexdiiba uu tijaabiyey marka waxaa leeyahay sirtaan hibaaq ku aaminay nin baa aayar ka furfuray Samatar intaanad wareejin filimka ilmada qarsoonayd wuxuu ahaa filim Soomaali badan soo jiitay in badan aragtiyo murugaa laga bixiyay dadkuna ay maalinba maalinta ka dambeysay la socdeen adigu maadaama aad shaqayaashii filimka ka mid ahayd maxaad ku xasuusan doontaa ilmada qarsoonayd
wallaahi horta waxaan ku xasuusan doonaa walow aanaanu sarag xogmaal media yacni maamulkeeda aanaanu sarag horta waxaan ku xasuusan doonaa dad badan oo aada u fiican baan filinka dhexdiisa aada iskugu baranay walow dee aan dad hargeysa wada joogo aqoon isku lahaan ahayn mahadoo kale nin aan aada saaxiib u ahayn intuu suudaan wax ka baranayay intuu dalka joogayba dad badan shakhsiyad badan oo fiican baan ayaan ku bartay marka dhinaca jilliinka laga yimaadana waxa weeyaan noloshii filinka lagu duubayay raaxada lahayd ee wanaagga lahayd ee ixtiraamka lahayd ayaan xasuusan doonaa sidoo kale waxaan xasuusan doonaa bulshada qaybeeda kala duwan siduu saameynta ugu yeeshay yacnihii habeenkii ugu la yaabka badnaa cabdiras waxaa nin sheekh oo bakoorad sitaa luuq madooy kaga soo horbaxa kabacdina show ninku markaan sidaa isku dhaafaynay buu seefta igu dhuftay inaan xaaji xuseen ahay ninkan nin taageeri jiray buu ahaa luuqii markaan saa u dhaafay aan wax yar socday buu ninkiis yidhi caawa jaanis ku haysaa ninka ka daba tag bakooradna uu sitay markuu idhaafayo sheekh waa khamiis buu xidhnaa haw buu iga soo daba idhiyo foojigni baan galay markiiba maskaxdaydii wax badan isweydiisay ma kugu dhufan doona ninku ma nin xanuunsanaya ma nin mushakiya waxyaaba badan baa isweydiiyey talaabadan hoosta ka yarxaday marka horta bal luuqa un ka bax horta bal meelaad faralaab un ka hesha baan isiri moogta wallaahi been kuu sheegi maaye ninkii markaan sidaa u dhaafay buu halkaasaa isoo qabto feedhkaan sira duuban buu igu yidhi xaaji xuseen marka haa saameyn buu aada u yeeshay sheekh iyo shariif cid aan daawan filinkaasoo odhanin yacni soomaalida filimaantooda maanaan daawan jirin laakiin filinkaa waa la soconay dadka halkan fariin baan uga marinaya waxa leeyahay aad baa umahadsantihiin sidaad xogmaal aad meel u gaadhsiisa annagana magacayga kor ugu qaadeen cabdiruusow haddaanu filinkaasi saameyn lahayn anuu tiktok maan isticmaali jirin hal maalin baa iska yara samaystay in yar oon dadka ku falowgaray waxyaabaha wanaagsan aan ku daawado dee 3 cisho ayaa 46 laygu gaadhsiiyey waxaaji xuseen hallo xaaji xuseen de magaca xaaji xuseen ba ku qornaa mise magaca wallahi magacayga caadiga waa ku laba kaliib ma soo dhigo sawirkaygii wax isku eegeen iyo kaagii marka waxaa leedahay saameyntiisa waxaa laga dareemi karaa baraha bulshada anagu aan jilayaal ahaan aan isticmaalo hibaaqii gudhib hibaaq adigu shakhsiyan maxaad ku dooratay inaad jilaan noqoto inta badan haweenku marka la eegayo kuma badna filim soo saarista caqabado badan oo dhinaca qoysaska ay kala kulmaan baa jira adigu shakhsiyan maxaad ku dooratay horta beersheenoogu horena waa isku naqaanaa anigu wariyaan ahaa waagii hore waxaana ka shaqayn jiray tv la yidhahdo bulsho tv marka anigoo waaga ma garanaysa warinimadii ku jira baa wiil la yidhahdo helomaj oo tiktok tacaanka halkan aad baan ku salaamayaba ii yeedhay wuxuu ku dhaabal hibaaqay film baa lamid marka ani waaga tv-ga film baan ka turjumay waxaan ahayn qoladan Soomaali garaysa ha waan matali jirnay xagga cod ahaana isma lahayn muuqaal ahaan badu matalaysa moogti wiilkaas ay yeeray wuxuu ku dhaabal kaale qolo youtube aan wax la soo duubanay filmkii maanta koobaad waan la soo matalay ka xarxaraaba ilaahay waan ka soo laabtay oo iyana kuma soo noqonaya waan kulma rabe warinimadeeda si wadanaya kadibna ninkii meesha lahaa unba iga hadwaayeen hibaaqay jilinkaaga ku qanacay dib u soo gal markii aan ku soo laabtay sidiiba ugu maan bixinba sidiiban ugu jira jilinima hibaaq maxaad ku xasuusan doontaa adigu filimkii ilmada qarsoonayd oo 41 xalqadood ka koobnaa oo dad malaayiin ah ay ku xidhnaayeen oo Soomaaliland ay u daawanayeen adigu shakhsiyan waxyaabaha raadka kugu reebay aad ku xasuusan doontaa ilmada qarsoonayd maxaad nooga sheegi kartaa والله waxaan ku xasuusan doonaa kula hadalkiiba samatar baa dhameeyay Mahdi Ibrahim oo ma garanaysa intii qof aan la soo shaqeynayay anuu oo kooxo badan baan la soo shaqeeyay gudoomiye ugu quruxda badnaa ugu maamulka wanaagsanaa ugu ixtiraamka badnaa la shaqeeyo inuu ahaa Mahdi Ibrahim dhamaanka marmaanada oo aan aad u salaamay iyagu ku ixtiraam laha oo si sharaf la isku baranay ay ahaayeen sidoo kale anagu ciidaru saxad moodaa waaga shaqada dadkeenan kaga duwanay imika tusaalaha hadii la yidhaho bari waad shaqaynaysaa habeenka dhan hurteegu ma soo dhacdo marka waxaad moodaa inaan xagga shaqada soo kasii fikiraa waa sii diyaar wax laga yaabaa marmarka qaar aan subax shaqayn jirnay inaan alaabteeda dhanba habeenka sii diyaarsan jirin oo xagga shaqadan aad ugu fiicanahay marka diyaar garowgii filimkii baa ku sugaya ma garanaysaa wax badan oo aan dee iminka aan ka dhigtay caadiyo mararka qaar filimka imika uba dhamaaday wax laga yaaba in mararka qaar iska diyaar garoobo isdhaado armaba filimkii lagu soo wacaaba wax badan baan ku xasuusan doonaa laakiin hadda maxaad ku xasuusanaysaa
samatar dhinaca saamaynta saamaynta uu kugu yeeshay saamaynta waxaan walaahi ku xasuunay masha Allah dad badan oo ku jecel oo inkastoo aniga xagga jacaylka laga walaalayba laakiin dadkii badnaa islaamaha hay ugu darnaadaan oo waxaan ku suuqa markaan qabanay leeyahay maxaa kugu kalifay iminka TikTok-tayda hadaad gasho waxaan samaynayo waa la iga sii baryaa iminka filimka waagan siyad dilay aan dilka u qorsheynay TikTok-ta dhanba waxa haystay walaa ku baranay siyad hadilin walaa filimka waxaan ka mitelayo ba TikTok-ta aad la iga sii marka ya waxaan mar horeba sii duubay mid kale aniga arsi una socda ma ogtay marnaba lagama yaabeen hadalkooda joojinta kee dhalay waan ka joogi waayay ma ogtay marka horta walaa waxyaabo badan baan ku xasuusanayaa xogmaal waan u mahad celinayaa mahad ibraahim aad baan ugu mahad celinayaa tawaka way intaanad ii wareejin aan ku weydiiyay maalintii kugu adkayd intii filimka la duubay bal maalintii baad noo sheegi kartaa oo la kartaa maalintaas ay ugu adkayd oo aan filimka duubaynay waxaan way ku adkayd والله أنا ما يبغى أتكيد ما حسوسته لكن هبين ما هديك جنحي ويقول فيلم واحد كذا شرت قيبت خمرية ورجع حكوش لا يبغى خمرية عبيسة بل أنت سيس عنود واحد سويدين هذي يمكن خمرية تعبته ترى الفيلم كده الحوار لكن والله سامين كلا وين حل كلام ده هو يبغى أتكيده حكى تشلين كما حسوسته واي إن سبتر حاج حسين بالمالك الأبو بسرعة كرتين في فيلم كهدو بيسين maalintaasay kugu adkeyd ma noo sheegi kartaa wallahi ina horta qalbigayga waxay daruuso kama baxso waxay igu adkaa habeenkii ay dumaashaday dhimanaysa kolley inkastuu de waxaan matalayayba wada tacadi ahaayo kala darnaayeen haddana habeennimadkaa yacnihii wax bilaadanimada ka baxsan baan sameynayay markaa duubayay markii anu waxaan ahay dadka aan guriga markay joogaan wax loo dira aan soo qaybin baana markaa la ii sheego baan waxaasaa la igu sheegay ku matala markaa inta u badan mahad markaan de kamarada soo fadhiisto buu ii sheegi jiray kamaradii yara kiban baa la igu yidhi sidaa saas odhanaysayo 4 jeer baan ku celiyay mahad mala waad kaftamaysaa waxaan iga bedelo wixii aad soo qortay ee filimka de ii sheeg markaa wallahi habeenkaasaa igu adkaa aan u diidayay lacagta gabadha qalliinka gelaysa iyadoo filim ahaydaan oga haddana aad bay igu adkayd waayo wax bilaadanimada ka baxsan maan sameynaya qof dhan oo lagu leeyahay naftiisu way baxaysaa wada adduunna haysood badbaadin kara laada inaad arwaaciyil weeyaan maalin kale ay raacdo maalintii walaalkay dhintay ninkaa filimka ku matelay jaajaale oon isagana tacsidii markaan tegay aan reerkii kusoo jeesjeestay halkaan tacsi ugu tegi lahaa labada cishaan xasuusta igu adkaa duubisteedii niya jab baan ku duubayay maad saas iyadoo film hayd hadda iyadoo film haaba wallahi aad ugu bini'aadamtinimadeeda ayay siin weyday way samatar taa casigeeda maalintii kuugu qosalka badnayd ee intii filimka aad jilayseen iyada ma xasuusta wallahi horta maalimo badan oo horta dee aan aad u qosalay baa jira markaa mararka qaar baa markaanu kamarada hortiisa fadhiisano ayaa mahadna waa dadka marka ay qoslaan ooye ilmeeye moogta ana sidaas oo kale alla aaminsan karin markaa waxaa dhacday inaan filim ka soo muuqdaan abti ugu matalayay oo filimka ku jiray oo qoladii sharqoolka ila waday habeen wax duubayay baan aad ugu qoslay markaa kelmad yar buu kari waayey markaa habeenkaasaa igu qosol baday aad u xasuusta ma noo sheegi kartaa si anagii daawadayaasha balaan u sawirano jawigaasi kelmadda waa ka gaabsanayaayo dhaclo yaroo kala yeelata moogta ha waxyaabo badan baa koos jiro markaa habeenkaa isla fadhiganaan fadhinay marka mahadna siduu qosday taymka ilmadii igu soo socoto habeenka aad baa loo yeelay markaa haddaa xasuusta halkii kasii markastoo wax duubayala ilaa yaan bar qosollo habeenkaa duubaya kelmadaan aad wada xasuusan jirnay ilaa yaan bar qosollo filimka mabaana duubi jiray habeenku ku jira waxay noo hayd batoocsi bay noo hayd markaa isagana halkan aan aad uga salaamaya waxaan leenahay ayaa miinka meenan xaraabeysan jirin kelmadda habeenkii baa saameyn u yeelay riwaaq laftigeeda balaan weydiiyey su-aasha laftigeeda oo ah ma xasuusta maalin kuugu qosol badnayd intii filimka aad duubayseen oo aad odhan karta habeenkaasi uu ka socnaa habeenada kale ama maalmaha kale ee filimka shaqadiisa aan wadno habeenkii ugu qosolka badnaa waxay ahayd horta 2 habeen baan xasuusta habeenka koobaad waxay ahayd habeen ninku eriyaad barayso oo dee kule kamarada waa garanaysa waa la jarjaraa laakiin qof kula haddana walaal kuma rabo iska tagad leeda walaal maysan ka dhig iyo qof kule kaa tagad leeda walaal way sirtii waaba sir la sheegay baad ogtahayba aad la sii barayso iyo habeenkii iigu horeysay khaymintaan la kulmo
inanku iska soo istaagay war jacaylimaha iyo keelitaan baan gabadhan ka helay jilinkiisa aad baan guuleed ugu qoslaa marka habeenkaas ay ugu qosol badan habeenkaas ay ugu qosol badan way markaynu eegno dhinaca caqabadaha haddii dib ugu yara laabano caqabado badan bay haweenku la kulmaan marka film jirista iyo waxyaabaha ay ka shaqeynayaan inkastoo hore aad usoo sheegtay inaad caqabado badan la kulmin taa cagsigeeda yaa garab weyn ka geystay inaad maanta halka soo gaadho oo aad noqoto jilaad bulsho badan oo Soomaaliya ay garanayso film jirideedana ay aad uga helaan yaa halkan uga mahad celinaysaa Maria laba ama qoyska ha ahaato ama hataa shakhsiyaad gaar ah oo garab ku soo siiyay والله horta Caydiruus waxaan oran karaa garabka koobaad ana haystaa waa hooyada macaan deeqa jiro jaamac la haydaayo hooyo waa garan kartaa inaan markii social media gasho waxa ma qaban kartid aan hooyadad garab siinin hooyo tiirka koobaad ee dhiirigeliya macnaan waxaan ay dadka maanta wax la soo kulmay hooyada uga sheekeeya ana xataa hadaa wiil la sheekaysto waxaan ay qofta hooyadad u sheegto dadka way maanta halkan baan marayo dhowr sanaantaada iyo sharaftaada ku jirta markaan halkan waxa uga mahad celinayo hooyo macaan waxaan la'aanta wax ma yihiin sidoo kale aabahay macaan halkan ka salaamayo oo aabahay uu yahay taageeraha koobaad ee filimka daawada la socda uu yahay inkastoo xanuunsan Ilaahay caafiyo hooyo aabo iyo inamadayadii halkan ma ka wada salaamay iyagana daanan iyaga maaragtay ana amarkooga halkan ku iman lahayn xuma talentiga aan la yeeman soo bandhigi kareen way intaan u gudbin Samatar hal su'aal baan doonayay inaan ku weydiiyo oo ah booskan isku dirka ama ruufiyaanimada waxa loo yaqaano inta badan filmaanta aad ku jisho ilmada qarsooneed ka hor iyo ilmada qarsoon laftigeedaba maxaad adigu ku dooratay shakhsiyan wallahi Caydiruusow inkastoo waqtigu nagu yari hadan soo kaabiyo 2019 qiso isoo martay oo aan oran karo qisooyinka dadka ku dhaco qisooyinka ugu xun qisadii soo martay bay ahayd qiso isoo martay oo dad aniga ii dhawaa ay maaragtay anigoon waxaan ahay de kala qod cidii taqaana waa ay taqaana qiso aad ugu xun bay soo martay xagga rufiyaanimada oo waaga wiil aan sheekaysanay inaan macnaha dhaxdeeda ka shaqeyso waagi guurka soo dhawaa inkastoo wax kasta ay calaf yihiin kadibna sidii baanintii ku dhacday qisada aan u arkay qisada igu dhacday dadka ilaa iminka waxaan rufiyaanimo uga matala si ay igu tusaale qaataan oo macnaha lamaanaha isjecel aan uga fikirin saaxiib oo kaliya walaal soo gali karo ilmaadar soo gali karo rufiyaanku qof walba noqon karo marka saaban markasta waxaan u matalaa bal saacadi inay meel walba ka soo muuqan karto aan saaxiib kaliya ku koobnaan karin ka kula dhalatay noqon kartaa inaadartay noqon kartaa habro wadaaga waalid kulay ma soo galo laakiin ana qof aad wax isku tihiin inuu rufiyaan kugu noqon karo marka waxaan leeyahay wacdi gelin dumarka marka waxaad leedahay xiriirka iyaga heerka inay iskuursana ku dhawaa waxa sababay gabadh isku kaaya dirtay dhexdeeda ka shaqeyso marka calada aad ka qaaday boosiishka ku dooratay ha sidiiba ma u matalin bajacayl oo rufiyaanimo matali jiray intaana waxaan u matalaa in dumarku ay ka qaataan wacyigelin oo laba qof oo isjecel inay dareemi kartaan waxa soo dhexgelaya in filimka gabadha ku daawaday inay sacdo ahayd inay ka dhex bilaabi karto marka saa baan rufiyaanimo inkastoo gabadh maaldood ay aragtay ugu tira 10 baan ka bartay waxaan rajaynay dumarkoo dhan inay 10 iga qaataan sida kale iyaga ma kala talisaa inaanay dadka isku dirino ama lamaanayaasha laftigooda ma kala talisaa inaan la isku dirino sida caadiga marka laga tago kamarada iyo filimada wallahi horta lamaanayaashan anigu aqaano rufiyaan ku xiyay anaaba tusaale igu qaatanba oo tusaale meel dhow uga soo qaaday waxaan dhahaa markaan anigu filimka matalayo macnaha sidaan ahay ku tusaale qaata baan ku dhahdaa walla maanas jecelna waan jecelahay Allah daayo iskuna daayo marka bal dumarka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa inta saaxiib iyo badda ka baxdaan war qofka la sheegstaan qasada hawshiina wata aad way Samatarow aan ku soo gudbo jilinka ama jilista filmaanta adigu maxaa ku dooratay walaa Caydiruusow horta shaqadayda horena waad garanaysaa ama waxaan ka shaqeynaa Nurul haysto horta anigoo yar baan jilinka bilaabay markii ugu horeysayna bareefad baan wax ka jilay marka macallimiintu bay igu tiri wax waad jili karaysaa wax waad matali karaysaa hadiyo jeer riwaayadaha yar wacyigelinta iskuulada iyo xaafadaha yar danyarta lagu matalo ee hay'aduhu bixiyaan bilaa kamarada baan inta badan ka shaqeeya marka dhinaca filimaanta waxa oran karaa maadun bay igu dhiirigeliyay inaan matalo marka waxaad leedahay shakhsiyaadka ay garab galaya inaan halka soo gaadho waxa kamid ahaa ma hadiyad kale ku dari lahayd oo mahad celinaysa
wallaahi walaal cid kale oon ku idhaahdo maanta ciddaasaa wax iga caawisaa masaa ay tiri ma garanayo. Laba jeeroo horaan ayaan filin yara matalay. labada jeer mid mahad baaba scriptiga soo qoray laakiin qaabkii aan doonayay anigu hibadayda jilin filin usoo baxay muu ahayn. marka filinkana igu horreeyey wax standard oo aan duubo caalamiya mahad baan u mahad celinaya isaga iga caawiya. intaana samataroo ka bixin gabagabadii barnaamijkii ku dhownahay bal caanimada laftigeeda dhibaatooyin noocee bay leedahay maadaama aad tahay jiraa iminka dadku ay wada garanayaan xaaji xuseen bal caanimada laftigeeda maxaad dhibaato kala kulantaa ma seed u aragtaa caanimada laftigeeda? wallaahi Cabdiruus marka hore khaatiyaan waxaan ka taagnaa qoftee mar walba gobolada Soomaaliland oo dhan soo maray oo meel walba waxaan ahaa caan loo kala un baan ahaa. laakiin caanimadii waxaa ku darsantay inaan ilaa satellite-ka gala adduunka iyo dhan la socdo ma garanaysaa. marka walaa caanimadu faa'iidana way leedahay khasaaro badanna way leedahay. haddii faa'iidada aan ku horeeyo ixtiraam bay dadku kugu haynayaan yacni dhinaca aaminaad oo kale lagu aamino. tusaale ahaan haddaad wax iibsanayso oo kale oo lacagtu xataa kuu goyn weydo waa lagu aaminaya waxa lagu aaminayaa qofnimadaada dee la bartay ee lagu ogaaday. sidoo kale khasaare ay leedahay waxaa ka mid a had iyo jeer waad is ilaalinaysaa qof is ilaalinaya unbaad bashar bayno qalad baa kaa dhici kara waxbaa kaa dhici kara qof ma salaami kara si tusaale ahaan iminka nin dhalinyaraa baan ahay haddaan islaado inaan aada u qurux badan yara salaan xaaji xuseen markaa kala iska dhigada dhalinyaraa lama ogta ila tumarka waxa la soo bas alwa xaaji xuseen shukaasiga dawa u burayba marka wallahi dhibaatooyin badan ay leedahay baa baashu jiro inaad xataa maaragtay adigoo maalin dhawito waxa dhacday qof baa anigoo gaari wada macmuus yar baa iska xidhnaa dacasna waxnaa ka gaarigayga dad iska wato iska socday qof emergency yaa ila soo hadlay dhakhtarkii weynaa baan orod ku galay anigoo dee macmuus yar iska rifrifan oo dee guriga ka soo baxay oo gaariga wada. marka waxaan arkay dad kamarada ila daba ordayo oo ila daba socda malaa waxay la sugayeen intaan aad u sii qarxayo hadhow waa la soo daynaya war malaynaya dadka farin baa xagga uga marinaya waxa leeyahay anuu mar liiba kama dhaco waxaan ay qof mar walba kalsoonida naftiisa uu ku qabo ay ka weyn tahay intay dadku ku qabaan. marka waxa la walaal dhibaato badan bay leedahay inaad islaamto. hibaaq balaadu caanimada laftigeeda seed u aragtaa maxaad se kala kulantaa inta badan? walahi caanimadan waxaan arkaa faa'iido badan oo caanimadu tixgelin badan bay ka leedahay dadka oo tusaale marka lagu arko wax lagu leeyahay alla waa sacda waa lagu kacaya dad baa ku salaamaya ma malayn kartid hooyooyinka waaweyn ee hooyooyinka laga muxibbo iyo maarka jacayl ku salaamaya ciyaalka yaryar ee iminka soo kacay ee nuunaha yar xataa haddii ku salaami kari waayaan way odhanayaan ma ogtay marka wallaahi aniga horta marka weliba siiba aniga waxaan ku qiirooday ciyaalka yar markay ay gartaan oo aniga ciyaalka aad baan u jecelahay. dhinaca kalena markaad aragto horta bas iyo meelaha kuma qajaami kartido waxa lagu leeyahay maxaa bas ku saara taajirad baa wataay badanka ama inaad dee face maskiina qamaanadu waan hoos kama jirnay waxyaabahaas ka xidhataa. dee caanimadu faa'iido iyo khasaarana way leedahay. Cabdiruusow in yar baan kuugu darayaa tii ahayd hooyanimada kolba waxba soo gacanaysaad xasuusanaysa. waxaan xasuustaa dharka aan anigu xiranayay aan filimka u soo xiray badankan shiid baan ku metelay. dharka aan anigu xiranayay marka hooy maqasho hibaaq filimkii bay leedahay hooy dharka way dooni jirtay oo badankan filimka dhar isku egay waxaasan ku dhamaystay. hooyo filimka markay maqasho inaan anigu aan filimkii caawa leeyahay oo kale hooy suuqa ii tigi jirtay allah ay daayo haasay filimka ay igu qurxiso hablahaygana hadda halka ma ka salaamaya oo markan meel aad xidhaan maxaa ka qabanaysaa maxaad xidhanay isqurxi waxa xasadaan ma ogtay marka halka ma ka wada salaamaya dawaka. ugu dambeyntii hibaaqay daawadayaal fara badan oo malaayiin gaadhaya baa idinka daawanaya baraha bulshada kala duwan filimka ilmada qarsoonayd oo soo gabagaboobeyna ku xidhnaa oo daawanaya adiguna aad jina ka ahayd fariintaad caawa daawadayaashii badnaa ee ku taageeri jiray ee jiliinkaaga ka heli jiray caawa halkan uga diraysaa maxay tahay? wallaahi horta waxaan ilaa halka maanaa soo gaarneen filimka waxa qarxiiba waa idinka filimka quruxda iyo qaaya waxa uu yeelay dadka daawanaya. waxaan aad baa u mahadsantiin saa xalqada u sugaseen kastaan xalqada nooga haysateen wad soo yareysaan aad bay idinka mahad celinaa anagoo idinka wax idinku nahay inaan dee suuqa face mask baad kala anagoo la marno oo waxaad idinkuna gashateen
oo maaragtay dadkii ku daawanayay filimkan wuxuu saameyn kaga leeyahay filmadii hore rag baa ku salaamaya filimkan midka weligeeba isma oran jiray rag waxay daawadaan filimada Soomaaliga hadda waxa u badan ee islaama waa rag oo filimka daawada oo yiraahdo aabaha waa khalajin baataaninahay marka walahi waxaan leeyahay idinka waxay ku nahay channel kan soo follow gareeya subscribe ka soo saara TikTok tiiga gadhigti anaguna meelaha baraha bulshada aan ku leenahay baldana soo booqdo masaakiintiina baan nahay YouTube-dana ha nolo soo booqdo idinka waxaan channel kan waa kii sabay inuu labadeena iskeento inaad bal halkan u maray 3 milyan kan iskugu nimaadno insha Allah samatar ugu dambeyntii adigu daawadayaashii Xaaji Xuseen ku garanayay ee la socday jilinkaagii filimka Ilmada Qarsoon maxaa caawa leedahay لا عدروسو ورت مرول با الله سبحانه وتعالى يا مهزك له سجلنا وما يقرح ذا يقيمها نويا لي إن أنا دتك سور استجننا إلهي با سورة كليه الحمد لله رب العالمين بالله هاي لما دتك قيمها بدنان وتاجري المؤمن كرا هي بدي إذا نقول تاجري كرنا قاضي إن تصي إن أنا دت شرنا هاي هروسي سعون كريا أدبنكم هذا علنيا سامين كلا دوون بي يقول الله aniga runtii dadku saddex bay u qaybsameeyeen adruus waxa jira qof waxaan run u haystay oo mararka qaar cayka aan kala kulmaynay oon mar walba lahayn waan ku jecelahay laakiin inta u badan dadka ila soo xiriiray waxa ay dadka qurbaa joogan aad halkan uga salaamay adduunka meel kasta ka joogan oo runtii sheegayay yani jilinkaygu inuu aad u wanaagsanaa oo igu dhiirigelinayay saan hore uga sii socdo aad baad u mahadsantiin baa leeyahay dhammaantiin midun baa ku darsanaya waxa leeyihiin xogmaal media iyagoo isku duuban maamulkooga aad baan uga mahad celinaynaa dadkana waxaan uga mahad celinaynaa inuu filimkaygiina sabab u noqday inay 1 milyankii iyo dheeraad waliba ay gaarsiiyaan dadku waa halkaa ibaaqa ay sheegtay filimkan dad badan baa daawanayay waliba dadka ugu badan ee daawanayay waxa ahaayeen dadka habeenkii soo jeeda ee gaarka dadka kolayada jaadka ka shaqeeya dadka tagaasida wata oo waxyaabaha ugu badan habeen dhaweyto inaan taxi soo qaaday oo iiga dhaartay inaan lacagta u diro madaxa jibsina lacagta direebiyo iska daade marka dadka aad baan ugu mahad celinayaa waxa leeyahay intaan filim ka duwan aan iskugu imanayno wixiina wacyigelin baa haayeen wacyigelintaas ma farinteeda dadkaan u diray inay qaataan waxa weeyaan qof waliba oo dulmiga iska ilaaliyo dulmiga meel lagu ma gaaro anaa ku gaari lahaa filimka xataa marka laga imaado dulmi baa sameynayay oo dulmiga faraar kula jiray waxa weeyaan filimku wuxuu ka hadlayo in dadka lagu wacyigeliyo dadka waxaan leeyahay balniyo wacyigelintaan idin soo bandhignay cajiibka qaata oo waxa weeyaan ku xisaabtama in lacag xaraan lagu sameeyo aanay meel gaarin laakiin hantidaada xalaal ku sameysay meel fiican gaarayso waxyaabo badan buu ka hadlayay jacaylku ka hadlayay lacagtu inay kibir leedahay buu ka hadlayay marka waxa leeyahay bal lacagtan ayaa lagu kibrin insha Allah aad iyo aad mahadsantiin wahagaag daawadayaal intaasi waxaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ah ama qaybtan ay martida igu ahaayeen Samatar oo aad ku taqaaneen marka la joogo filimka Ilmada Qarsoon Xaaji Xuseen iyo sidoo kale Hibaaq Shaarcase oo iyaduna aad ku taqaaneen Sacda oo caaw halkan wax badan idinka iftiimiyay oo aad tabayseen annaguna aanu su'aalo kala duwan aanu hor dhignay oo aan weydiinay intaanu ku kulmi doono barnaamij xiga ama jilayaasha kale ee iyaguna filimkaasi ka soo muuqday oo sidan oo kale aan ugu wareysan doono waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh